gabadhayda Sahra Cali Maxamuud waxaan doonayaa gabadhaydu inay hesho cadaalad inay heshaan doonayaa gabadhaydu ma ka tagi doono halkaan inaan joogo haddii Ilaahay yiraahdo aydoon cadaaladeedu aysan meel fuulin qof ayaa la ii sheegay inay soo gashay xabsiga CID iyo dadka ku howlan inay hawshayda ii dedejiyaan doonayaa inta maqan oo harsanna la ii doono inta ku shaqada leh waxaan ka doonayaa cadaaladda gabadhaasi inay dhammaystiranto xaq darrada lagu dilay oo dulmiga ee baadilka lagu nafteeda ay ku weysay Zahra Cali Maxamuud waxa ku gaaray ama ku dhacay walaasheen waxay ahayd kufsi waa la dhintaa laakiin dhimashada ay dhimatay ma ahayn dhimasho qadarta la marka laga yimaado ama xabad lagu dhuftay ama xanuun ay u dhimatay ma ahan waxay u dhimatay waxa weeye dad mujrimiin ah ayaa kufsaday waliba kufsigu waa kala xanuun badan yahay waxa loo geystay wax la yiraahdo kufsi wadareed walaasheen Zahro in maanta waa aasnay aman xeer ilaalinta ayaan ku aasnay mid lamida cadaaladda inaan helno inaan mar laba dib insha Allah noogula yeero ayaan rajeynaa insha Allah ta'ala waxa way dhacda xanuun badan ay ahayd 30 maalmood ay frinjiteer ku jirtay waxa way maanta waa soo aasnay waxaan doonaynaa inta meesha ka hadashay ay ka hadlaysay inta joogta u joogta inta dhageysanaysa ay u dhageysanaysa cadaalad in la helo cadaaladaan doonaynaa waxa waaye ehelkii marxuumadaas in loo cadli falo oo cadaalad helaan dambiilayaashana waa naqaan kuwa baalinayana waa naqaanaa waxaana indhahayna ku aragnay dambiilayaasha in horena laga taagan yahay gadaalna laga taagan yahay waa dambiilayaal kalaan leenahay kuwaas dadku waxay leeyihiin eedaysana maaha waa dambiilayaal waxaana caddaynaya waxa meesha ka dhacay gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid ah inuu jajaban yahay waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid ah inuu go'an yahay waxaan indhahayna saarnay waxyaabo bini aadamku uu ka yaaqyaqsado hay'adaha amniga iyo hay'adaha baarisan waxaan ka codsanaynaa inay si xaq ah u baaraan si xaq ah u soo diiwaan geliyaan si sax ah dukumeentigeeda u soo gudbaan hay'adaha cadaaladda ayaan ka codsanaynaa kuwa xiran in sharci la marsiyo kuwa aan tuhmayna duurka jirana ama ku meeraysanaya meelo kalena waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta dadku dad islaam waaye ahlu tawxiid waaye nooma bannaana waxaan islaamka u baahnayn nooma bannaano waxaan ka xunnahay dhibta ku dhacday gabadhan oo ay u geysteen niman arxanlaawayaal ah waxaan leenahay marka horta iyada Allah naga sabar siiyo midda kaleeto dadku waxa waaye waa naflay waaye mar walba waa la dhimanaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in cadaaladda ilaahay